madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan isagoo maanta la hadlaya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka wadankaasi waxa uu fariin adag oo waliba xasaasi ah u diray wadamada dunida islaamka waxa uu leeyahay ceelna nooma qodna cidna nooma maqna waxay naga dhaxaya aan meel iska dhigno waxay noo muhiimsan aan ka hadalno maanta waxa la joogaa xilliga dunida islaamka ay midoobi lahayd fariintiisa si weyn ayaa loo arkaa xilli xasaasi ah oo waliba gobolka bariga dhexe uu daalaa dhacayo warar la yaab lana ay ka soo baxayaan arrimaha diblomaasiyadda oo laga yaabo inay isbedelaan maalmaha soo socota warbaan idiga siinaya khudbada Erdogan iyo waxay sida gaarka u taabanayso dhinaca kale markaan eegno ciidamada dawladda Iran iyo mas'uuliyiin kala duwan oo dawladdaasi ka tirsan ayaa ku dhawaaqaya in haddii Mareykanku uu cunaqabatayntan ku sii hayo dhinaca badda ah ay tallaabo military uga jawaabayaan markan Iran ayaa noqonaysa cidda weerarka bilaabaysa haddii ay shalay ahayd mid la soo weeraraya oo gantaalaha iyo duqeymaha la kulmaysay muxuu baahiyaa caawa telefishinka Press TV ee dawladdu ay gacanta ku hayso warbaan sidoo kale idinkaga hayaa waxyaabaha kale aan idila wadaagi doono waxaa kamid ah wargeysada Israel caawa waxay qorayaan warbixino xasaasi ah Macaarif waxa uu leeyahay dhab qaldan ayaa lagu socdaa taariikhda ma soo marin Israel meesha ay wajahayso muxuu yahay warkan qarsoon ee warbaahintu ay qatarta u aragtay hadda soo baxay iyana waan ku sheegi doonaa dhinaca qadar markay xiisadu adkaatay gobolka bariga dhexe uu dagaalmo horto u sii ekaanayo boqorkii ama amiirkii wadankaasi waa dhoofay waxana uu tagay magaalada Athens ee wadanka Greega dal isqariya oo Israel saaxiib la ah iyadoo xiisadu ay kulushahay gobolka bariga dhexe aan la aqoon meesha uu socdo jawiga uu gabi dhaclaynayo Trump go'aano adag ay hor yaalaan dawladda Iran ay hanjabayso madaxweynaha wadanka Turkiga ayaa waxa uu hadlay isla markaana uu sii daayay fariin u eg dunida islaamka cidna uma maqna ceelna uma qodna fariintiisa maanta waxa uu ka jeediyay xarunta baarlamaanka gaar ahaan fadhi gaar ah ay isugu yimaadeen xildhibaanada ka tirsan xisbiga AK Party ee talada wadanka Turkiga haya dalkaasi waxana uu leeyahay haddii maanta dunida islaamka isku duubnaawayso oo waxa iyaga ka dhaxeeya ay meel dhigi waayaan isla markaana ay si guud u arki waayeen oo daraska halka loo socdo iyo fahanka taariikhda iyo isbedeladan hadda dhacaya in ay noqon doonaan taariikh laga sheekeeyo Erdogan waxa uu leeyahay adduunku waxa uu yaqaanaa waxaan isku nahay inaga laakiin ma yaqaanaan waxa inoo dhaxeeya laakiin waxa inoo dhaxeeya inaga baa og maantana waxaa la joogaa xilligii wixii dhacay xalay dhalay laga noqon lahaa oo aan isku iman lahayn kana fakari lahayn sida xaaladdu looga badbaadi karo dood adag waa fikir runtii aad u weyn waxana ay ka dhigan tahay Erdogan hadaladiisa inaan iska iman oo hay'adda sirdoonka wadankaasi aad ku adag MIT la yiraahdo xogaha gobolka bariga dhexe ay ka soo dhiranayso ay arkayaan dunida inaan u socon jihad qaldan oo ku socota jihad qaldan oo loo baahan yahay maanta in laga hortago si kale haddii hadalka Erdogan loo fasiro waxay tahay intaanu daadku soo gaarin ayaa la iska moosaa waxa soo baxaya xoga tilmaamaya xitaa haddii dagaalka Iran la soo xiro in sheekada wadamada dunida islaamku ay noqon karayso dibigii cadda kii madooba iyo kii casa oo ay noqonayso haddii afka reexamarka lagu turjumana ay noqonayso sheekada inay tahay canjeero sida ay u kala koraysa ayaa loo kala qaadaa haddii afka reer guuraaga la geeyana waxay noqonaysaa ood ama jiidis ama qaadis waa isla gurigeyn macnaheedu waxa uu yahay waxa loo socdaa waa hal meel ujeedadu ma aha in lagu dhamaanayo dawladda Iran dood badan ayuu soo baxaysa Erdogan hadalkiisana sidaas ay dadka wax taxliilinaya ay ku tilmaamayaan waxa la leeyahay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in dunida islaamku ay marayso marxalad aad u adag isagoo ugu baaqay dadka in ay dhinac iska dhigaan kala duwanaanshaha qowmiyadeed madhab fikir iyo waliba siyaasadeed si loo xoojiyo midnimada iyo walaaltinimada xilli ay adag tahay baa la yiri gobolka bariga dhexe isagoo khudbad gaar ah ka jeedinaya kulanka xildhibaanada xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee Atanmiya wal Cadaala AK Party ee wadankaasi Turkiga baarlamaanka ka tirsan ayaa Erdogan waxa uu yiri in ay arintan noqonayso haddii aan laga fakirin ku dhicitaanka dabin aad xasaasi ah
oo qalalaasihiisu ay abuurayaan in ay noqon doonto qayaano iyo taariikh loo maleegay muslimiinta oo laga sheekeeyo dunida oo dhan. Wuxuu carabka ku dhuftay in taariikhdaasi ay noqonayso mid diiwaankeeda ay yeelan doonaan madax iyo majo ama shacab aan idhaahdee guud ahaanba dadka maanta nool, isla markaana si foolxumadaasi taariikhdaasi afoosha xun looga wareego. waxa uu leeyahay hadda waxaa la joogaa xilligii aynu gaashaankeenna iyo muruqeenna iyo madaxeenna iyo maankeenna iyo weliba wax kasta oo aan ka midaysannahay hal meel la isugu geeyo. haddii kale ninba maalintiisa ayaa meesh gaara lagu raacdaysan doonaa ayuu leeyahay Erdogan. ma runba ma awrkacsiba mise waa xaalad dhaba adigaan kuu daynaya. haddii aan eego wadanka Iran maanta waxay leeyihiin haddii Mareykanka iyo Donald Trump cadaadiskan iyo dhuudhuujinta cunaqabataynta uu sii wado, hodaga wixii ku dhacay isaga ayaa ka shalaayi doona. Iran waxay leedahay dhimasho ma dhaanto. waxaa la joogaa xilligii aan qaadi lahayn tallaabada ugu habboon ee aynu kaga hortagayno gudnimadan la inoo wado. waa hadalkooda sida uu dhigan yahay. telefishinka Press TV caawa war adag ayuu sii daayay, waxaana uu leeyahay haddii cunaqabataynta lagu hayo dhinaca badda Iran ay sii socoto, dowladda Iran waxay uga jawaabi doontaa tallaabo military. markaasi malaymayo inuu dahsaaran yahay. aan eego telefishinka dowladda Iran ee Press TV ayaa soo xigtay ila amni oo ka tirsan dowladda Iran, waxaana ay tilmaamayaan tallaabooyinka Mareykanka dowladda Iran inay u aragto burcadbadeednimo. waxa ka socda marinka Hormusna inaan loo dulqaadan doonin, isla markaana haddii ay sii socdaan baa la yiri dowladda Iran ay kaga jawaabi doonto howlgal military oo adag oo aan waxba la isku reeban doonin. isha amniga ayaa sheegtay oo telefishinka la hadasheen ciidamada qalabka sida ee Iran ay aaminsan yihiin in basiirka uu xad leeyahay ama samirku uu xad leeyahay, isla markaana jawaab adag loo baahan yahay haddii Washington ay sii wado waxa Tehran ay ku tilmaamayso go'doominta sharci darrada ah ee badda. dhinaca kale warbixino ay daabaceen wakaalada Reuters iyo wargeyska The Wall Street Journal ayaa sheegaya in madaxweynaha Mareykanka Trump uu kala hadlay baa la yiri saraakiisha aqalka cad in shirkadaha shidaalka qorshe lagu sii wadi karo cadaadiska dhaqaale la saaro iyo xanibaadda maraakiibta dowladda Iran ku sii soconaya. wararku waxay sidoo kale tilmaamayaan in Trump uu faray baa la yiri la taliyaashiisa amniga qaranka in ay u diyaar garoobaan go'doomin dheer oo la saari doono dekedaha Iran si Tehran loogu qasbo in ay ka tanaasusho barnaamijkeeda nuclearka iyo kobcinta uraniumka. sida la sheegaya warbixinada maamulka Mareykanku waxay doonayaan in haba yaraatee aan arrimahaasi loo dulqaadan doonin oo Iran aan la siin doonin wax ikhtiyaar ah ilaa ay Iran tiraado waxaan diyaar u ahay Mareykanku inaan isdhiibo. dooda Trump ayaa sidaasi lagu sheegaya. kulama ka dhacay aqalka cad ayaa sheegaya in lagu qiimeeyay laba ikhtiyaar oo halis leh in ay jiri karaan. mid waxay noqonaysaa dib u bilaabashada tallaabooyin military dagaalka in uu dib u bilowdo iyo maamulka Trump inuu u muuqdo inuu door bidayo cadaadis dhaqaale marinbiyoodka joogtada ee dowladda Iran la saari doono ama sii saaran baan idhaahdee. madaxweyne Trump ayaa sidoo kale fariin uu ku qoray bartiisa Truth Social ugu baaqay Iran inay si degdeg ah oo caqli ah yeelato si ay heshiis u gaarto, isagoo sheegay in Tehran aysan dhib u doonayn in xal diblomaasiyadeed wax lagu xalliyo, laakiin Mareykanka uu yahay cidda waxaasi raadinaysa. khilaaf cusub ayaa sare u sii qaadaya walaaca laga qabo amniga gobolka iyo mustaqbalka guud ahaan shidaalka caalamka, iyadoo dowlado fara badanna wadnaha ay farta ku hayaan. haddii aan sii eego isla bariga dhexe xiisadiisu waa culus tahay. ka waran Israel waxaa la leeyahay wadda aan habboonayn ayuu ninkii Benjamin Netanyahu gaari aad u dheereeya ee Mercedes inta uu saaray waxa uu la aaday waddo haadaan ah oo aan la ogeyn godadka iyo jararka ku yaala meel ay geey doonto. sidaasi waxaa qoraya wargeyska Macaarif oo dhahaya inta ay goor tahay waa in jiritaanka laga fakara, haddii kale awalba sheekada nolosheenu daan dabagaala ayay ahayd. nin kasta hortiisa iyo boorsadiisa ayuu u raran doonaa halkii markii horeba uu ka yimid. dooda taagan ayaaba sidaasi fasiraysa.
warbixin uu daabacay wargeyska Israa'iil ee Macaarif lagu magacaabo ayaa ka digay in nidaamka uu wajahay qatar weyn oo amni oo halis gelinaya jiritaankeeda kadib markii la ogaaday baaxadda kaabayaasha military ee u harsan baa la yiri ururka xisbiga ee Lebanon. qoraaga ayaa wariyaha militariga ee Macaarif ninka la yiraahdo Caavi ayaa sheegaya in qaraxyada lala beegsaday laba godad oo istiraatiiji ah oo lagu kala magacaabo Araad iyo Aka kuwaasi oo ku dhow baa la yiri deegaanada Qantara ee koonfurta Lebanon ayna ahayn dhacdo military oo caadi ah balse ay tahay buu leeyahay in ay tahay fashil weyn oo ka dhacay istiraatiijiyadda militariga. sida uu sheegay qaar ka mid ah godadkan waxay muujinayeen heerka dhismaha iyo u diyaargarowga ururka xisbiga ay sameeyeen sanado badan iyagoo ku sameystay baa la yiri dhulka hoostiisa xarumo iyo goobo military oo sii xoojinaya dagaalka inuu sii ballaaran karo. marka waxa uu leeyahay waxaan arkaynaa caadi maaha waxa qarsoonna waa naga sii badan yihiin laakiin jiritaanka waxa uu baahan yahay in fikir lagu daro in aad dagaal isu aragtay inaad xoog weyn tahay maaha nin xoog weyn waa xarkabeela ay Soomaalidu tiraahdaa isaga ayay mushkiladu ku dambeyn doontaa. qoraagu waxa uu dhaleeceeyay adaha siyaasadda iyo kuwa militariga isagoo sheegay inay ku fashilmeen inay joojiyaan kobaca awoodda xisbiga inkastoo Israa'iil ay hore u sheegtay in qatarada weerarka xadka waqooyiga la leeyahay howlgallada militariga ay muujinayaan. warbixintu waxay tilmaamaysaa in godadkan loo diyaariyay in ay noqdaan goobo isku urursada baa la yiri dagaalyahanada kooxda Ridwaan loo yaqaano ee xisbiga ka tirsan ururkaasi waxaana ay iminka muujinayaan in xiisadu sii cuslaanayso haddii se dagaaladan ay sii adkaadaan baa la yiri loona helin siyaasad lagu furfuri karo dhinacyadan waxay ka dhigan tahay jiritaanka nidaamka inuu saameyn weyn ku yeelan karo. ugu dambeyntiina xilli gobolka bariga dhexe uu sii adkaanaya xiisadiisan iyo waliba mashaakiladan taagan waxa muuqanaya baa la leeyahay in hogaamiyaasha carabtu ay ka fakarayaan cid kasta oo ay nabadda bariga dhexe ka baadi goobi karaan inay aadaan. amiirka dalka Qatar Tamim bin Hamad Al Thani ayaa ku dhawaaqay in maanta uu la kulmay hogaamiyaha wadanka Greega isagoo ku sugan magaalada Athens. labada dhinac waxa ay ka wada hadleen sida xiisada gobolka bariga dhexe loo soo gabagabeyn lahaa. dalka Qatar waxa uu kamid yahay kuwa sida weyn ay saameynta ugu yeelatay dagaaladii 40 maalin ka soconayay gobolkaasi oo dawladda Iran ay si ba'an ugu asqaysay gantaalaheeda isla markaana xiisadu ay ka soo gaareen dhibaatooyin dhaqaale oo la duqeeyo goobaheedii wax soo saarka shidaalka iyadoo haddii dagaaladu ay dib u bilowdaana Tamim bin Hamad Al Thani iyo dawladdiisu ay ka baqayaan mashaakilada inay galaan. inkastoo isbedelada dhacay ee dawladda Qatar laga dareemay hanaanka jihaynta warbaahinteeda in dawladda Iran laga siiyo fursado ay aragtideeda ku soo bandhigi karayso haddana wali waxaa jira walaac laga baqayo dagaalku in uu sii faafo. ikhtiyaartayna la socotay tabinta qaybtan iyo barnaamijka faaqidaada wararka dunida iyo sidoo kale diblomaasiyadda bariga dhexe qaybtan intaas ayaan ku hakinaya waa barroweyd leh si aad xogtan iyo kuwa kale aad u heshaan nala sii jooga soo dhawaada.